habeenada ka mid ah shaqada ayaan ka imanayay. Waxay ahayd 10kii habeenimo. Guriga ayaan ku socday. Wadada highway-ga ayaan marayay. Highway haddaan garanayn waxa weeyaan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dhex mara. Kadib gaari xoog ku socda ayaa soo maray. Kadib waan yaabay. Xoog ayuu ku socday inta loogu tagalay in ka badan ayuu ku socday. Waxaan is dhahay ma meel ayuu ku degdegayaa ama boolis ayaa eryanaya. Kadib taayirada mid ka mid ah ayaa ka baxay. Kadib gaarigii ayaa kala warwareegay. Intuu kala warwareegay ay wadada dhinaceeda ku dhacay. Kadib gaarigaygii ayaan istaajiyay. Waxaan rabay inaan fiiriyo qofka gaariga waday inuu caadi u yahay. Kadib ninkii waday ayaa dhulka ku soo dhacay. Wuu soo fiiriyay. Dhaqso ayuu jilbaha ugu soo socday. Dhinacayga ayuu ku soo socday. Runtii waxbaan ka dareemo daaqada quful ayaan ku xidhay. Gaariga markaan quful aan ku xidhay xogaa yar kadib gaariga ayuu ku soo booday albaabka dhinaca fadhiyay. Isagii xoog u jiidaya oo furris leh oo muraayada xag horena feer la dhacaya. Si fiican ayaan wajigiisa u arkay. Weligay Allah ilaahay sidoo weeka. Kadib hal mar ayaan gaarigii ka kaxeeyay meeshii oo dhan. Dib dhulka ayuu isku tuuray. Meeshaas ayaa igu dambeysay habeennimadkii. Kadib guriga ayaan aaday. Gaariga ayaan iska bedelay. Kadib meeshii ayaan ku noqday. Runtii waan yaabay. Meesha wax kale inay ka dhacaan ayaan u malaynayaa. Waxaan ugu yimid meeshii oo wada boolis ay ka buuxaan iyo ninkii gaadhigiisii oo weli meeshii yaala. Laakiin ninkii ma arkinba. Kadib waan iska hoyday. Aroornimadkii anigoo computerka isticmaalaya warka ayaan akhrinayay. Kadib waan yaabay markaan arkay. Waxaan arkay gaari oo la eryanayay ay boolisku eryanayeen. Kadib gaariga nambarkiisa ayaan gartay inuu ahaa kii aniga ag maray. Nambarkiisa si fiican ayaan u xasuustaa inuu kii yahay. Welibana qofka uu waday inuu sakraansana oo irbaday waxa uu isku muday. Kadib ninkiisana si fiican ayaan wajigiisa u xasuustay sawirka markaan arkay. Runtii waxaan ogaaday markaan meesha ka tagay ninkii intuu qof uu dilay. Intuu ninkii uu kacay oo wadada uu ka talaabay oo dhinaca kale uu galay ee gaarigii ugu horeeyay soo socday oo taxi ahaa ayuu intuu galay oo qofkii waday uu ka soo saaray oo banaanka uu soo tuuray. Ayuu gaarigii ka haystay qofkii wadayna. Gaariga ayuu sii haystay isagoo ka fuqi kara la'a. Kusoo gaariga ugu dhagsanaa ayuu dhintay. Kadib booliska ayaan wacay. Kadib maxkamadda ayaa la saaray. Waxaan ka sheekay inuu anigana ninku uu dil gaaray. Aad ayaan u cabsoonay maxaa yeelay ninku qof dhan ayuu dilay. Horteedana uu fadhiyay. Waxaa lagu xukumay ninkii 30 sano in jeel la geliyo. Ninku uu igu soo qoslayay saayna waxba ka gelin. Runtii ilaa imika waxaan ka fikiraa habeenkii haddii aanan gaariga si qoflin aniga ayuu ahaan lahaa qofka dhintay ee wadada uu jeedi lahaa. Man, I can't stop. Tell my brother drip like paddling pools or waterfalls. It's all cool. It's all cool. T-bone whip, don't stool. Man, ain't no fool. Man, stay focused. Keep my eyes on the ball. Tell me what rules. Rules.